asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba dhegaystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhegaysanayo. halkani waa codka soomaalida Finland SSM oo goorahan oo kale aanu idinka soo tabayna bartayada internetka wararka viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale. haddii aynu ka horeyno dalka Finland maanta oo jimco ah bisha February aynu ku jirna ay tahay 5 ayaa hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga THL waxa ay shaaca ka qaaday in maanta laga helay viruska corona dalkan Finland 401 qof oo horle. taasi oo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ka dhigaysa 46,894 qof. isku darka guud ilaa iyo 73 magaalo oo dalkan Finland ayaa laga helay cudurka, waxaana ugu badan meelaha viruska laga helay gobolka Helsinki iyo Uusimaa oo caasimada iyo hareeraheeda ah oo 258 qof laga helay, gobolka Varsinais-Suomi oo 39 qof laga helay iyo gobolka Vaasa oo 24 qof laga helay. magaalooyinka laga helay tirada ugu badan ee viruska ayaa ah sida tan soo socota: Helsinki 114 qof, Vantaa 56 qof, Espoo 46 qof, Turku 22 qof, Järvenpää iyo Nurmijärvi 9 qof ayaa laga helay, Vaasa 7 qof ayaa laga helay, magaalada Kareva 6 qof, magaalooyinka Jyväskylä, Tampere, Narvio, Kaarina, Pori iyo Rauma 5 qof ayaa laga helay, magaalooyinka kale Oulu, Sipoo, Kotka iyo Korsnäs 4 qof ayaa laga helay. sidoo kale magaalooyinka Lohja, Nokia, Muurame, Paimio, Hattula, Lahti, Kuopio, Tuusula iyo Tornio 3 qof ayaa laga helay, halka magaalooyinka Vihti, Salo, Raisio, Uusikaupunki, Puutua, Sastamala, Muhos, Mikkeli, Alvieska, Mustasaari, Kirkkonummi iyo Savonlinna iyo sidoo kale magaalada Vouri oo 2 qof laga helay. xanuunka viruska corona awgiis waxaa isbitaalka ugu jira 124 qof sida ay sheegtay hay'adda THL, kuwaasi oo 20 ka mid ay ku jiraan qaybta gargaarka degdega ah. tirada dhimashada ayaa maanta 4 qof ku korortay, waxaana ay haatan maraysaa tirada dhimashada sida hay'adda THL tirakoobkeedii ugu dambeeyay ay ku sheegtay tan iyo intii xanuunka safmarkaa dalkan Finland uu ka bilowday 692 qof, iyadoo maalintii shalay ahaydna 3 qof ay dhinteen. dowladdu waxay soo saartay 3 xeer oo kala duwan oo viruska cusub ee corona xaaladiisa loola tacaali doono si looga hortago faafistiisa. Finland waxa ay haatan ku jirtaa sida dowladdu ay sheegtay heerka koowaad. heerka labaad waxaa la gelayaa marka ugu yaraan kala badh gobolada dalku ay galaan heerka ugu sarreeya ee faafista viruska. marka la galo heerka saddexaadna waxa ay dowladdu dalka gelinaysaa xaalad degdeg ah, waxaana la soo rogayaa bandow xagga socodka ah, iyadoo golaha wasiirada ay la socon doonaan xaaladda dalka hadba meesha uu marayo, isla markaana wixii talooyin ay ka qaadan doonaan howlwadeennada caafimaadka. wasiirka cadaaladda ee dalkan Finland Anna-Maja Henriksson ayaa waxa ay sheegtay in ay adkaan doonto si xal looga gaaro in dadka go'doonka ku jira ee xanuunka viruska corona uu ku dhacay ay aadi karaan ama ay codayn karaan doorashooyinka golaha deegaanka ee dalkan Finland ee fooda nagu soo haya bisha Abriil ee soo socota. iyadoo u waramaysay warbaahinta ayaa waxa ay sheegtay in arrinka haatan taagan uu yahay in 2 xuquuqood asaasi ah ay iska hor imanayaan, kuwaasi oo in la kala ilaaliyo. waxaana iska soo horjeeda bay tiri qof xanuunka viruska corona qaba laakiinse xaq u leh in uu codeeyo, iyo nolosha iyo caafimaadka qofka shaqaalaha doorashada ka shaqeynaya ah ee qofkaasi codka ka soo qaadaya. waxaana ay sheegtay wasiirka cadaaladda ee dalkan Finland Anna-Maja Henriksson in haatan laga fakarayo sidii loo diyaarin lahaa barnaamij ah ku codaynta guriga, taasi oo qof shaqaale ah oo ka socda dhinaca doorashooyinka uu guriga iman doono si uu uga qaado kaarka uu ku codeeyay qofka xanuunsan ee dhakhtarka amarkiisa lagu geliyay go'doonka guriga. waxaana arrinkaasi ay sheegtay in haatan ay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga THL iyo wasaaradda cadaaladduba talas bixin iyo hagisba ay ka siin doonaan dhammaanba degmooyinka dalku uu ka kooban yahay. dhinaca arrimaha tallaalkana waxaa baaritaan haatan uu ku socdaa tallaalka viruska corona looga hortagayo ee caruurta loogu talagalay. welina lama bixin wax ogolaansho iibina oo ku saabsan tallaalka caruurta ay da'doodu u dhaxayso ilmaha markaa dhashay ilaa iyo da'da 15 jirka, taasi oo haatan tijaabadoodu ay weli socoto. da'da u dhaxaysa 16 ilaa iyo 17 ee caruurta u nugul halista cudurrada ayaa waxa ay qaadan doonaan tallaalka ay soo saartay shirkadda BioNTech iyo Pfizer, waxaana doorkooda ama kaalintoodu ay imaan doontaa marka la tallaalayo dadka 70 sano buuxiyey, iyadoo
hagista arrinka ku saabsanna dhammaanba degmooyinka si gaara dadka ay khusayso loogu diri doono. guud ahaan dalkan Finland sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga THL waxaa ilaa iyo haatan la tallaalay 164,501 qof. dadka da'doodu ay 70 sano ka weyn tahay ee tallaalka la siiyey waxaa tiradoodu ay gaaraysaa 62,000 oo qof. qaybta labaad ee dhammaystirka tallaalka waxaa loo dhammaystiray oo wada qaatay dad tiradoodu ay gaarayso in ka badan 42,000 oo qof. meelaha ugu badan ee tallaalka laga qaatay waa Helsinki iyo Uusimaa oo caasimadda hareeraheeda ah, gobolka Pirkanmaa iyo gobolka Varsinais-Suomi. weli dhinacii tallaalka ayaynu ku jirnay dalka Finland waxaa haatan la diyaarinayaa shahaado dhinaca elektrooniga ah oo qofka uu ku heli doono marka la siiyo tallaalka viruska corona. wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada ayaa sheegtay in arrinkaasi ay haatan diyaarinteeda wado, iyadoo markaasi isagoo elektrooniga qofka uu telefoonkiisa kusoo degsan karo. waxaana shahaadadaasi ka muuqanaysaa macluumaadka la xiriira tallaalka qofka la siiyey. waxaana lagu kaydin doonaa marka ugu horeysa qaybta arrimaha caafimaadka lagu kaydiyo Omakanta ee dalkan Finland oo qof walba howlihiisa caafimaadku ay ku kaydsan yihiin, iyadoo sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadkuna arrinkaasi si dhaqso ah haatan loo dardargelin doono. waxaana arrinkaasi samayntiisa iyo jadwalkiisaba ka mas'uula sida wasaaraddu ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga ee THL. dalal badan ayaa iyaguna haatan qorsheynaya in baasaboor loogu magac daray baasaboorka tallaalka oo ah shahaado yar oo kooban oo qofka tallaalka qaata iyo macluumaadka tallaalka uu ku qoran yahayba in qofka la siiyo, taasi oo dad badan u fududeyn doonta dhinaca safarada dibadda, iyadoo laga cabsi qabo in shirkado badan oo ka mid ah sharikadaha waaweyn ee caalamka ee diyaaradaha ay soo rogaan inaanu qofna raaci karin duulimaadada dibadda ilaa uu sito mooyaane tallaalka viruska corona. weli warkii gudaha ayaynu ku jirnay. magaalada Vanta waxaa lagu soo waramayaa in arday ka badan 200 ay u nuglaadeen viruska corona iskuulada magaaladaasi, iyadoo la xiray xanaano carruur oo ku taala isla magaaladaasi. xanaanadaasi carruurta ee Pavilion la yiraahdo oo ku taala Koivukula ayaa 2 qof laga helay viruska corona, waxaana laga tuhunsan yahay in uu yahay nooca cusub ee viruska corona. sidaasina waxaa maanta sheegay maamulka magaalada Vanta. sababtaas awgeed ayaa maamulka magaaladu waxa uu arkaa in dhammaanba shaqaalaha xanaanada iyo carruurtii ku jirtay ay u nuglaadeen viruska corona. sidaa awgeedna waxaa la geliyay karantiil tiro gaaraysa 73 carruurtii xanaanadaasi dhiganaysay iyo shaqaalihii xanaanada oo 21 qof ah. waxaana xanaanadii albaabada loo laabay maanta oo ay xirnaan doontaa ilaa iyo 12 bishan February aynu ku jirno. sidoo kale iskuulka la yiraahdo Lehtokuusi ee ku yaala xaafadda Hakunila ayaa fasalada 4 iyo 5 dhammaantoodba isniinta waxa ay geli doonaan waxbarashada dhinaca internetka ah. sidaasina waxaa sheegay maamulka magaalada Vanta. waxaa iskuulkaasi laga helay 18 qof oo qaba viruska corona 3 toddobaad ee lasoo dhaafay. ardada 6 iyo 9 ayaa arbacadii lasoo dhaafay waxa ay galeen waxbarashada dhinaca internetka ah, waxaana ay ku jiri doonaan ilaa iyo 19 bisha oo ay guriga wax ku qaadan doonaan. ardayda 1 ilaa 3 ee iskuulkaasi dhigta kaliya ayaa iskuulka imanaya oo waxbarashadooda iskuulka ku qaadanaya. sababta waxbarashada looga dhigay dhinaca internetka ayaa waxa ay tahay iyadoo laga cabsi qabo in nooca cusub ee viruska corona sida dhaqsada u faafaya uu ka jiro iskuulkaasi. waxaana sababtaasi awgeed karantiin la geliyay u nuglaaday dad tiradoodu ay gaarayso 222 qof. sidoo kale iskuulka la yiraahdo Itahakila iyo iskuulka la yiraahdo Sotinkoulu ayaa labadaba waxaa laga helay viruska corona arday ka mid ah, iyadoo qaar ka mid ah ardaydana ay u nuglaadeen viruska. iskuulka Itahakila 59 qof ayaa la geliyay karantiil, halka iskuulka Sotinkouluna 57 qof karantiil la geliyay. dhammaan iskuuladaasi ayaa cabsida laga qaba ay tahay nooca cusub ee viruska corona uu yahay waxa dhex wareegaya. isku darka guud xanaanooyinka iskuulada iyo macaahidda magaalada Vanta waxaa karantiil ku jira dad tiradooda ay kor u dhaafayso 733 qof, iyadoo arrinkaasina ay tahay cabsi laga qabo markaasi in goobahaasi uu ka jiro viruska corona.
magaalada Esbona 13 arday oo ka tirsan iskuulka caalamiga ee la yiraahdo Esbo International School ayaa qaybtiisa Open Maki ku taala waxa laga helay viruska corona sidaasina waxa sheegay maamulka magaalada Esbo sababta awgeed ayaa ardaydii wax ku baranaysa qaybta Open Maki ee fasalada 4 iyo 9 waxa la geliyay waxbarashada dhinaca internetka iyadoo guryaha ay ku qaadan doonaan waxana ay socon doontaa waxbarashadaas dhinaca internetka ilaa iyo 17 bisha February ee foodan ugu soo haysa waxaa dhici karta sida wararku ay tilmaamayaan in halka virusku ka yimid iskuulka dhexdiisa ay tahay iyadoo markaasi laga cabsi qabo in uu yahay nooca cusub ee viruska corona haatan cadeyntiisu ay socoto sababta awgeed ayaa dhammaanba dadkii u nuglaaday viruska corona waxaa la geliyay 14 cisho oo karantiil oo ay gurigooda joogi doonaan maadaama uu yahay nooca cusub ee viruska corona waxa la tuhunsan yahay ayaa dhammaan dadkii u nuglaaday viruska waxaa loo diray baaritaan xitaa haddii aanay lahayn wax istaamo ah iyadoo markaasi mar labaadna la baari doono 2 maalmood ka hor inta aan karantiilku u dhammaanin iskuulkaasi Esbo International School oo 2 qaybood ka kala duwan ayaa qaybta Open Maki ee ku taala xaafadda Suurebelto iyo qaybta la yiraahdo Kivimies ee ku taala Oteniemi qaybta Kivimies ee ku taala Oteniemi waxbarashada si caadi ah ay uga socon doontaa sidoo kale qaybta Open Makina ardada fasalada kuwaad iyo ilaa iyo 3 oo kaliya ayaa iskuulka waxbarashada u imaan doona haddii aan ardadaasi qaar ka mid ah karantiin la gelinin 23 bishii January ayuu maamulka Esbo waxa ay sheegeen in 3 ka mid ah ardayda iskuulkaasi laga helay viruska corona arrinkaasi oo markaasi shakigu u ahaa nooca cusub ee viruska corona isla markaana baaritaanadii la qaaday aan wali wax jawaab laga helin sidoo kale iskuulka la yiraahdo Tistire ee ku yaala xaafadda Matinkula ayaa isagana laga shakisan yahay in nooca viruska faafista ee ka jira uu ahaa midka cusub walina natiijadii saamiga baarista ee la sameeyay ma aanay imaanin madaxa qaybta ammaanka magaalada Esbo Sanna Svan ayaa waxa ay sheegtay in ilaa iyo haatan degmada Esbo laga helay 14 nooca viruska corona kuwaasi oo dhammaantoodba nooca la yiraahdo variant ee dalkaasi Ingiriiska ee sida dhaqsaha u faafa haatanna wararkii dibadda dalka New Zealand ayaa sheegay in uu mar kale albaabada u furi doono dadka qaxootiga ah ee wadankooda soo galaya dalkaasi ayaa viruska corona awgii sanad ka hor waxa ay xireen xuduudooda si looga hortago faafista viruska bishan waxaa dalka New Zealand imaan doona 35 qof oo qaxootiga nooca la soo qaata iyadoo dhamaadka bisha 6aadna tiradu ay noqon doonto 210 qof dhammaanba dadka qaxootiga ee wadanka soo gala ayaa la gelin doonaa karantiin 2 usbuuc sida ay sheegtay dowladda Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Jacinda Ardern ayaa waxa ay sheegtay in dowladeedu ay sanadka hore soo qaadatay 1500 qaxooti hase yeeshee barnaamijkii arrimaha qaxootiga la joojiyay bishii Maarso ee sanadkii la soo dhaafay xanuunka viruska corona ee bilowday awgis dalka New Zealand ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay dalka ugu horeeya dhinaca wax ka qabashada viruska corona isagoo ay u suurta gashay ama ka guuleystay in uu si wanaagsan uga hortago faafista viruska ilaa iyo tan iyo markii uu ka bilowday xanuunka safmarka ee adduunka sanadkii la soo dhaafay waxa dalka New Zealand laga helay oo kaliya 2,000 oo qof oo qaba viruska corona iyadoo tirada dhimashaduna ay ahayd 25 qof oo kaliya wararka ka imanaya dalka Sweden waxa ay shaaca ka qaadayaan in maanta oo Jimco ah laga helay viruska corona 3,388 qof oo hor leh dalkaasi Sweden sidaasina waxa sheegtay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysay howlwadanada caafimaadka ee Sweden sidoo kale dhimashada ayaa lagu soo waramay 87 qof in ay tahay inkastoo ay tahay tirada dhimashada ee dhowr maalmood oo la isu geeyay dalka Sweden ayaa tirada dhimashadu waxa ay maraysaa ilaa iyo in ka badan 12,000 oo qof iyadoo tirada faafiskuna 500,000 ay kor u dhaaftay haddii aynu dulmar guud ku sameeyno dhinaca caalamka tirada guud ee haatan viruska corona laga helay ayaa 105,509,684 qof maraysa tirada guud ee dhimashada caalamkana waa 2,296,597 qaaradda Yurub oo marka la eego qaaradaha adduunka meelaha ugu liita dhinaca faafista ayaa tirada guud ee dadka uu ku dhacay waxa ay maraysaa 34,122,177 qof dhimashaduna waa 761,612
dalka Mareykanka ayaa weli kaalinta koowaad ku jira iyadoo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ay kor u dhaaftay 27 milyan. 24 saac la soo dhaafay 121,627 qof ayaa viruska laga helay Mareykanka waxaana uu dhintay 3,523. tirada dhimashada ayaa nus milyuun ku dhow waxaana ay maraysaa 466,988. Hindiya ayaa kaalinta labaad ku jirta 10 milyan inkasta oo tirada faafista ee dhimashaduba Hindiya ay hoos u dhacday haddana waxaa laga shaki qabaa in aanu jirin cid baaritaan ama tiro koob dhaba sameynaysa. Brazil ayaa kaalinta saddexaad ku jirta xawli ku socota iyadoo laga yaabo goordhow inay Hindiya dhaafto 9.5 milyan ayay tirada guud maraysaa. 24 saac la soo dhaafay oo kaliya 57,848 ayaa viruska laga helay 1,291 waa ay u dhinteen. tirada guud ee dhimashada Brazilna waa 228,883. ruushka ayaa kaalinta afaraad ku jira 40 milyan ayuu qarka u saaran yahay tiro aad u yar ayaa uga dhiman. 24 saac la soo dhaafay 16,714 qof ayaa laga helay 521 waa ay u dhinteen. tirada guud ee dhimashada ruushkuna waa 75,205 qof. Ingiriiska sidoo kale 4 milyan wax yar ayaa isna uga dhiman oo waxa uu daba gurguuranaya ruushka waxaana tirada guud ee dadka laga helay viruska corona 24 saac la soo dhaafay ahayd 20,634 iyadoo 915 ay u dhinteen. 110,250 qof ayay tirada guud ee dhimashadu ay maraysaa. Faransiiska kaalinta lixaad ayuu ku jiraa 3.2 milyan, Isbaynna kaalinta toddobaad 2.9 milyan. Talyaaniga ayaa kaalinta sideedaad ku jira 2.5 milyan ayuu maraya. Sidoo kale Turkiga kaalinta sagaalaad Talyaaniga ayuu daba socdaa isna waa 2 milyan iyo bar. Inkasta oo tirada dhimashada iyo tan laga helay dadka maalin kasta Talyaanigu uu ka badan yahay Turkiga sababta awgeedna uu kaalinta sideedaad uu kaga hormaray. Jarmalka ayaa kaalinta tobnaad ku jira. xanuunkuna farabaan uu ku hayaa 2.3 milyan ayay marayaan. 12,989 qof ayaa laga helay 24 saac la soo dhaafay 673 xanuunka way u dhinteen. tirada guud ee dhimashadana waxa ay maraysaa haatan 6,885. sidoo kale Colombia ayaa kaalinta 11aad ku jirta, Argentina kaalinta 12aad, Mexico ayaa ku jirta kaalinta 13aad inkasta oo Mexico si xawli ah arrinku ugu socdo. 24 saac la soo dhaafay waxaa laga helay 12,153 iyadoo tirada dhimashaduna ay ahayd 1,707. Mexico oo dhinaca tirada dadka laga helay viruska kaalinta 13aad ku jirta isla markaana 1.9 milyan ayaa tirada dhimashada waxa ay ku jirtaa kaalinta saddexaad dhinaca adduunka oo waxaa laga helay 161,240 qof oo u dhintay viruska corona. Poland ayaa kaalinta 14aad ku jira 1.5 milyan, Koonfur Afrika kaalinta 15aad 1.4 milyan, Iiraan kaalinta 16aad 1.4, Ukraine kaalinta 17aad 1.2 milyan, Peru kaalinta 18aad ayay ku jirtaa 1.1 milyan. Indonesia kaalinta 19aad iyadana 1 milyan ayay kor waxyar u dhaaftay. dalka Czech ayaa haatan ku soo biiray oo kaalinta 20aad ku jira isna 1 milyan ayuu taagan yahay. waxaa haatan jaranjarada 1 milyan wax yar uga dhiman tahay oo mar dhow soo fuuli doona dalka Holland oo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ay marayso 997,751 qof. 24 saac la soo dhaafay 4,321 ayaa laga helay, 60 qofna u dhimatay. waxaa dhici karaysa markaa maalinta berri ama ugu dambeyn Axadda in dalka Holland uu ku biiri doono dalalka 1 milyan. Canada ayaa ku soo xigta 796,435 qof ayay maraysaa. Boortaqiiska oo xanuunku farabaan ku hayo ayaa isna kaalinta 23aad soo galay, dalal badanna xawli ku soo dhaafay waxaana haatan Boortaqiiska tirada guud ee maraysaa 755,774. haddii sida hadda uu ku socdo oo kusii socdana mar dhow Canada ayuu ka dulboodi doonaa. tirada dadka laga helay tusaale ahaan Boortaqiiska 24 saac la soo dhaafay waa 6,916 halka Canada ay ka ahayd 2,701. dhimashaduna Boortaqiiska waxa ahayd 258 halka Canada ay ka ahayd 76. dhegeystayaasha qiimiga iyo qaayaha mudan ee hawada naga dhageysanayo wararka ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale aad kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM. intaa ayaanu ku soo koobaynaa waxaana wararkaanu idiin soo gudbinaa Isniin, Arbaco iyo Jimco walba.
inta aan ku kulmi doono fursad tan lamid ah waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo dardaarankeennii ahaa aan u hoggaansanno talooyinka howlwadannada caafimaadka, socodka macno darrada ah iyo isu imaatinka aan loo baahnayn aan iska ilaalinno. sidoo kale nadaafadda aan ku dadaalno. naftaada daryeel, tan ehelkaaga, tan dadkaaga daryeel. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.